looks like إنه dhowr jeer isku dayay inuu dhaafo halkaas 342 ayuu fail garoobay marka ma dhaafaya allahu aclam laakiin hopefully inuu dhaafaya rajeynaya because u-turn dheer buu soo suubiyey 3,000 baan qorsheyn inaan gato markuu dhaafay kaa kale hadda 3,000 baan gatay oo ah $3.20 ku gatay $3.20 $3.20 على سعر ugu fadhiyaa 322 ayuu hadda marayaa 320 310 iska iibiyey 270 profit 5,190 saasaan ku wadayaa 3,000 ka markuu move cusub bilaamo waan ku iibiyey hadda 3,000 kalaan gatay $3.38 baan ku gatay waxaan rajeynaya inuu 342 dhaafi doono waa kaasa hadda inuu dhaafaya rajeynaya right now inuu dhaafi doonaan rajeynaya movekan right now wuu dhaafi doonaa right now waa kaasa waa dhaafaya I believe inuu dhaafi doono this is the move well we see still we have a chance all right let's see meeshuu kasoo noqon doono أنا هو فريق 338 saddex kulan kala ku darayaa 6 kulan share 325 ugu fadhiyaa 325 average down baan suubiyey 325 waa kaasaa hadduu gaaray 325 325 323 320 27 325 28 33 $870 فائدة كبحي $6,000 جوستا بعد مريا لسي ولا في دونا صدق كلا قطي 345 هو قطي $345 يقول فريا صدق كلا average down نسوق دونا عملاء I'm not sure هو أنا يقول فريا $3.45 هالكي شير MRIN واي a lot of green بوجي ده a lot of green cause I'm gonna sell now profit كحواي $210 not bad يحكون يبقى لي كونتون هاي بقول لي حوالي في طرف 5 سنت على شير بقول لي كونتون فايدة alright so اللي يحكون يبقى لي كونتون دولار و MRIN MRIN let's see وحقبته
data mar baan egay of technology sector-ka software and application waaye this guy waa cagaynaya si wax badan ku diimaayo 1000 ka bacay 1000 gadanaya because meel sare uu joogaa si haddii wax iga go'aan wax 100 iyo wax la mid iga go'aan 1000 share baan gatay oo $3.66 ku gatay haddii soo godoomana doo soo boodaya $100 duu gaaro maniska هذا لحن دولار بقى كل جيل لحن $4 أو جود أو مانيسا only 1000 shares $3.66 $3.70 إلى كوي 76 areas $100 profit الله يكرمك بالعمل في الدولار 371 مبارية it goes up and down تدوات اللي $1 فائدة وأسيب بحياتنا يحكون إلى أبغى $100 so the game plan ka waxa waaye marka xogaa kor u kacawa aan marka tag baqdinta waaye 3 baan gatay la sii meeshu aado ma u gatay إذا بيوفر يا 391 388 الدؤالية وكاسا 95 بقول لي صدق انت $1 فعلا واسيب بحي 6280 $4 وما حلق لي markuu kale wuxuu gaaray 407 hadda waa soo gadoomay oo YouTube uu soo biyay waxaan dhigi karnaa 407 waxaan dhigi karnaa resistance waaye meesha ka soo noqonaya waa kor oo xanibaysay oo dadka ay eegayeen is this gonna be meeshaan man waxay noqon doontaa meel oo baaram uu ka soo celiyo istaaga halkaa markuu dib loo noqonayo mise uu ka degi doonaa oo VWAP uu gaari doonaa so we can analysis mataqaan asmeena ay sheegaan wala hoos baan u qaadina mar saan ogaana meesha ka soo noqonayo is 336 now kanalkan waxaa ka dhiman 30 second 30 second ka bacdi nucus waa bilaabanaya so meeshu u aadi doonaan eegaynaa markaas all right, let's see now. First candle make new high. This is the legit now had the way. First candle make new high. All right, let's see. We're shaqeyn doono. We're shaqeyn doono ogaano. صدق baan gatay. $108 faa'iido wax ka baxay $180 faa'iido ah. $180
برتي أو خلبة زوبي برتي أنا هو قتي هذه واحد إيه مركو هذا نسكيبي لكن سيستم كدليا أو ما يعني برتي أنا هو قتي بنسكيبي معناه أنا أقول قصدي أنا أنا أقول أنا بقول جد في هذا كهذا لكن مثلا نقول و يمتدي يعني سيل إيه يسون نقط كي هذا حوا إسكو أدو anyway لكن حوا العائق قبل من عن كأهين only lacagta uu broker iga qaadanayo because marka aan gato iyo marka iska iibiyo the system dad baa iskala isticmaalaysid systemka lacag baa laga qaadanaya just la xawlaad oo kala waaye marka broker fee baa igo laakiin saami ahaan dad lacag iga marmo because waxaan ku iigo gatay sida halkan ka cad buy 3,369 and then sell 369 baan ku iibiyey marka sidaa daraaddeed lacag igama lumin laakiin fee waxaa iga go-ay oo nimankan brokerka iyo raadka isticmaalaya iyo waxaas baa go-aya it's not a lot of money but it's money صدق كم هالك هم قلت $3.57 357 يقول فريا هالك يشير 357 يقول فريا على شير لو بقول لي $1 وسيستم كي شيء وكاسا هذه هو استح بقول بقول واحد this is the system يقول لي صدق كم ما قلت 357 and then you said 367 which is 10 cent على share that means $100 واي 6,280 وهي استمر قولي أظن 6,580 30 cent وإي كورلي لسي قاعدة 1 فيز 1 مجنيوها سي ضعيفة أو شغالة صح this is the measure A guy because هالكان صدق حظ جرنجرو أدو كان دافو وهذا كان دافو كاس وجارة زين كو أركي جري so let's hope إنه red can would cost عن $3.36 وصل هذا في واب وزنجاري which is 317 so رجل واحد واي كان واحد من صدق سكن جود دكو حرمه جريء عصب بلامه أما أصل وجود به that would be first one make new وفي عن واي also نعم 5 minutes ka very good واي because 5 minutes ka $3.64 بيكون بيجي هاي first one make new هاي first 5 minutes make new هاي so let's see marka هذا كان العصبة بلامي مش ذاك اللي هي يعني برتان واي this is the setup ad في عن واي as long as ومنطقة uptrend وياي dadka short gareynaya laftirkooda way ka qiyaas qaadanayaan bartaan hadduu dhaafo 372 wuxuu gaari karaa $4 wixii kalayso gacantan waxa ku haya keyboardka goolkayga waxa waaye $152 inaan aan ka qabto markuu 150 oo reebo fuushanka inaan ka qabto ana iibsada 3,000 share maximum bes cilad kala imaanin let's see now new channel kala bilaamay
صدح وان قطي $3.60 $3.60 صدح كم هو قطي $3.63 $3.64 $3.65 $3.68 بقول $8 بإيشا سيستم كا يب بقول $8 $6,780 صدح كلان كنت جابيني برتان صدح كلان قطي 373 هون قطي كاسا 71 72 ولافة يعني سلي هاي as the goal ولافة كاسا لافة بقول لو تم يجي سيستم كا يس بقول $10 كله or less because 373 2 cent كليه 2 times 3 $6 سوق كورسنا وجدان is very slow moving واي like أدبر لو قدنا يا أدبر نسي بنيانا so كاب بنان دور عمرك alright هوسبول داي وحوص صعود ما قدرنا فرانك قادنا سوق هبطوا وجدا let's try ماشي أنا 1000 كليك كتو ولا 1329 استراتيجيا waxaweye markuu hoos gaaro aan kasoo qabsado alisi kor waa ka hadda kor aadaya right now isleeyahay waa 329 igu fadhiya aniga هادو فيا خاص ولا أنا كبودا إسلام بيك ديل ولا 1000 شير واي ميل هوسا كو قتاي waxa rajeynaya inuu guduudkan oo 40 cent uu soo lose gareeyay inuu at least half uu gain gareeyo haduu half gain gareeyo waa quarter uu gain gareeyo so ama wax badaqana hadda 10 cent haduu gain gareeyo very good way hadda 3 wuxuu marayaa 34 $50 uu gain gareeyay $90 baa ii saaran $110 iska iibiyey استراتيجية way shaqeysa ayadana $6,930 استراتيجية way shaqeysay oo marka uu saan xoog u hoobto oo one candle uu down galo zaad galo meesha uu hooseysa uu ka soo noqon inta ka gadatid then 10 cent will move gareeya always marka that's all you need 10 cent 6,930 so far so MRIN waaye kan hadda aan gadanayo inkastoo marka hore aan gatay maanta ASTC ga ASTC 3480 at the view of copter that means lama gadan karo ilaa view up oo ka soo noqdo MRIN baa hadana soo noqday oo 425 maraya so meel high buu joogaa hadda saddex baan ku gatay halkaas oo ugu fadhiso $4.30 $4.30 ayuu u fadhiyaa
$533 faa'iido waa ka baxay haddana. Let's see meeshuu gaari doono. It's a little bit higher now. It's kind of higher, so I will wait. Let's see now. Okay, hoos dhac baa jira halkaas. So first 1 minute make new high inaan kaga faa'iidaysto markaan waa qaacido dadka dhan ay wada eegayaan oo easy to understand. Dhanka aragga oo is clear. Only waxaad eegaysaa marka is dhaafayaan kan gudan halkaas kale ee ujeeda inta second ka dhiman 13 second 12 11 hadduu maraya marka mid cusub bilaabmo hadduu green kaa noqdo kan kii ka horeeyey uu dhaafo waayo. Hadda mid cusub baa bilaabanaya. Asana guud buu hadda yahay so far. Like still content second baa ka dhiman. Hadda waxaad eeganaysaa greenka cusub inuu kii ka horeeyey uu dhaafo. Bartuu ka dhaafa inuu dhaafo. Aadan noqonina qof raadinaya faa'iido 30 senti iyo wixii la mid 20 senti. As long as aad raadinaysid 10 second iyo age aad raadinaysid waa helaysaa inta badan. Haddii 10 senti iyo ka badan ka heshin is good, laakiin 5 senti iyo easy waaye. Qaacidaas waa ka helaysaa waana gadataa waxa mataqaanaa ilaa 3,000 oo share 3,000 oo waxaan percentage tira ahaan waa tira fiican waaye oo faa'iido fiican laga heli karo. For example hadduu 10 cent ku fuusho halkii share $300 haddii 50 cent ku fuusho $150 waaye. It's not bad. 3 jeer oo gashid oo minimum 50 ku fuusho waa $450. waa iskaga qibxi kardhaa waan la helaa. It's very easy to mataqaan loo samayn karo. So hadda waxaa ka dhiman 39 second ma gaari doonaa headkaas ma dhaafi doonaa $4.50 intuu gaaro ma dhaafi doonaa mise wuu soo noqon doonaa sana uu guud buu noqon doonaa laakiin ma naqaan. Kale hadda waxaa ka dhiman 24 second intuu bicsu ka bilaabi lahaa. Seven second, 2 second. Okay, hadduu bilaabo mid kale 3,000 halkaa kaga gatay bartaas $4.50 ayaan ku gatay. My game plan waxa waaye $4.55. hadda ujeedaa uu soo hobtay halkaas wax kaga cad waa shaqayn weysa face 1 minute meegnu yahay $1,200 meensahay $590 meensahay. waxa u jixin maayo laakiin because waa ka helayaa 3 kale aan ku daray $4.28 igu fadhiyaa $4.28. 3 kale aan ku darayaa $4.16 igu fadhiyaa 9,000 oo share baan haystaa $4.16. $4.11 ayuu fadhiyaa $4.11 12,000 oo share baan haystaa $4.11 halkii share igu fadhiyo.
هذا ده اسكي بيو صدق كون لو $700 waa negative ay baa iga lumaysa $700 ICB waa dhoolayaa saan ku aqaano waxa waaye this stag uu soo noqonaya maanta dhan صدق كلام كل شيء درايا $4 5 سنت كلي واي على شهر so that $4 5 cent I believe إنه قاري دونه I believe إنه قاري دونه $4 5 cent ونافي دونه سب تاس بان ويلايا إنان 15 كون أو شهر وهالكي شهر $4 إيش أنت تكون فري عن ناتو that's the risk I'm willing to take هذا عمره 387 وانت هذا كان soo noqday $2,730 profit ah laakiin kaga qaaday move kan $10,170 $10,170 maanta maalin 20 October maalin cajiib waaye maanta maalin cajiib waaye so basically MRIN 6,690 3,480 ASTC so halkaas baan kusoo gabagabeynayaa data mar baan ka baxay laakiin waan kusoo noqday sababtan waxa waaye dee waxaa qeylinaya dee scannerka baa kusoo shaqo gelinaya halkaas soo ma jeedaan MRIN si isku daba xigaan asaa marba qeylinayo gambareelka yeerinaya oo dhahaya don't go nowhere so anyway nasiib bay ka tahay whatever tahayba suuq waa intaas 10,170 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته